faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa xiisad ka dhalatay isor istaag lagu sameeyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo ku sii jeeday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. wararku waxay sheegayaan in markii hore la xanibay diyaaradii ay raaci lahaayeen wafdiga kadib amar ka soo baxay dawladda sida ay sheegeen ila xogaala. مسؤولين كترسن وفديجن أي شيء إن صوبت الله استاجع يتهاي رجال الصومالي حسن على خير الله شيء إنه تجلها بلدوينه بل سمرك الدم بكباقضي مدرش حزبية قرن أي دوان كل واقعي إن أي وجود دقيقة جرمت كفت هذا العجارة سلا بقول أكون $1 إسلام كان مجعبة جودي جرمت كفت هذا بلدوينه dhinaca kale rajalaha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo qorsho ahaa inuu tago magaalada Beledweyne ayaa safarkiisii ka baaqday ilo ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaana saxaafadda u xaqiijiyay in wafdiga horrac u ahaa ra'iisul wasaaraha oo isugu jira xubno ka tirsan xafiiskiisa iyo ciidamo oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha lagu wargeliyay inay dib ugu laabtaan maadaama ra'iisul wasaaruhu uu baaqday xubin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha wuxuu xaqiijiyay in safarkooda uu dib dhacay kadib markii lagu soo wargeliyay in roobab ay ka da'een garoonka diyaaradaha Beledweyne ayna adag tahay inay diyaaraddu halkaasi ka degto. dhinaca kale wafdigii madasha xisbiyada qaran ee ay hogaaminayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagana la sheegay in daqiiqada kadib loo fasaxay inay tagaan ama tagi karaan magaalada Beledweyne waxayna ku eedeeyeen maamulka garoonku inuu ku wargeliyay inaysan markii hore ka dhoofi karin garoonka laakiin markii dambe wada hadallo kadib waxa la xaqiijiyay in wafdigu ay dhoofeen. xildhibaan Cabdisaaq Cumar Maxamed oo la hadlay idaacadda Dalsan oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in wafdiga ay hogaaminayeen madaxweynayaashii hore ee dalka lagu wargeliyay in diyaaradda Beledweyne u qaadi lahayd loo diiday inay ka duusho garoonka waxaana xilligii la xanibay uu u sheegay idaacaddaasi sida tan. Airportkan joognaa waa inaan safarnay ahayd inaan qaadno mucaawino lacag aan ka aruurinay oo madashu ay rabtay inay la gaarto gurmad ahaan ula gaarto oo dadka dhibaataysan biyaha ay soo barakiciyeen ayaan u soconay dee waxaana lagu wargeliyay in diyaaradii aan saarnayn inaysan bixi karin. waa garta marka sababta la idinkugu sheegayo in diyaaradiinu aanay Beledweyne u duuli karin maxay tahay? wallahi dee waxaa safray ra'iisul wasaaraha rabay inuu safro ciidankiisana waa joogeen saakay marka inuu safro rabay dee ma aqaana dee inay tahay maadaama aniga aan safrayo madaxweynaha iyo ma safri karaan inay tahay in kale ma naqaano laakiin hadda ciidankiisa way noqdeen waa baxeen waa ka noqdeen airportka marka ma garan karna sababta loo waxay laakiin sabab yani loo sheega ma jiro ilaa xildhibaana dadku waxa is weydiinayaan maadaama ra'iisul wasaaruhu uu safrayay adinkuna aad safrayseen in protocol ahaan ra'iisul wasaaruhu idinka hormaro si garoonku aanay saxmad u noqon miya mise cilad kale ayaa jirta maadaama garoonka dib kuma qabno ra'iisul wasaaraha idinka hormarayo safrayo dib ma balaha taas noqota waa safri kariya waa tii kariya waa naga hormari kariya qadarin uu leeyahay waa ka dambeyn karnaa dib ma laha laakiin waxaan lagu wargeliyay in diyaaradii aan ijaaranay waxaan lagu wargelisay inaan safri karin oo arrintu ay ka timid xukuumadda ay ka timid dawladda ay ka timid. waa garta marka waqti rasmi ah ayaa la idin sheegay oo aad duulaysaan ma bixi kartaan ilaa hadda wax waqtigan loo sheegay mala haddaysan hadda wasaaraha inuu baaqday inuu meel kale ka baxaayo ma naqaano laakiin haddaana hadda mala dhigi doonin waa bixi kartaan ilaa iyo hadda annagana meesha waa joognaa oo yani kolley waa joogaynaa ilaa aan warka ka si fiican aan uga ogaan inaan bixi karna iyo inaan bixi karin marka waa xayiranahay yani waana joognaa airportkana dhex joogna dadka xayiran adinku aad la socotaan Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh miyaa ku jira ha gudoomiyaha madasha madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh labadaba waa joogaan. wixii warar ay ku soo kordha waxaad kala socon doontaan boggeena YouTube-ka ee Raad Production fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar oo ka mid noqo asxaabta ku xiran halkan.